madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa galabta oo taariikhdu tahay 7 bisha May waxa uu soo kormeeray garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir Airport ee magaalada Garowe kaasi oo naqshadeyntiisii iyo qurxintiisii marayso heer gabagaba lana filayo in maalmaha foodayna ku soo hayay la soo gabagabay. madaxweyne Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kormeerkiisa uu galabta ku tagay garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir waxa ku weheliyay wasiiro xildhibaano saraakiil ka tirsan madaxtooyada dowladda Puntland iyo mas'uuliyiin kale oo booqashada ku wehelisay. waxaa gacanta ku haya dhismaha garoonkan shirkad laga leeyahay dalka Turkiga taasi oo si qurux badan u naqshadeysay garoonka. madaxweynaha dowladda Puntland ayaa soo maray dhammaan qaybaha kala duwan ee garoonka sida dhabaha diyaaraduhu ay ku ordaan, xafiisyada shaqaalaha, baakinada baabuurta iyo meelaha ay yaalaan qalabka wax looga dejiyo